السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وأحمد بيك جانك الدعوة وأحمد بيك أوفيشال كسر دواد مقال عصب. muuqaalkan maanta wuxuu noqon doonaa arintii Caashe Ilyas oo muddo dheer soo socoto la soo wada haystay oo soo gabagabowday. Marka muuqaalkan ayaan guda geli doonaa, waxaan xasuusinayaa inaad subscribe saartaan Axmed Bik Official, comment like share na ka ilaawin ku soo dhawaada muuqaalka faahfaahsan. Nimankii kufsaday Caashe Ilyas ayaa mid kamid ah diya laga qaatay, halka laba kamid ah hore loo dilay. halkaas ayuu ku soo gabagaboobay kiiskii muddada dheer soo socday. si kastoo ay ahaato, diyada Caashe Ilyas ayaa lagu asteeyay 75 neef oo geel ah, kiiba wuxuu u dhigmaa $500. marka lacagta total waxay isku noqonaysaa 37,500, halka ay dhiibeen 25,000 oo u dhiganta 50 geel ah. sidaas awgeed halkaas ayuu ku soo gabagaboobay kiiskii muddada dheer ahaa, kaas oo laba nin kamid ah la dilay, kii kalena diyo laga qaatay. waxaa halkaan ugu muuqata inay ku soo gabagabowday kiiskii muddada dheer ahaa, kaas oo familkii wixii ay rabeen qasaasteen, wixii kalena ay la heshiiyeen. maanta muuqaalkan halkaas ku eegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.